say the word ornament in that. What's up? I'm Billie Eilish, and I'm about to bury your friend, Billie Eilish. inay aaminsan tahay qofka cuna hilibka xoolaha inaanu waxba dhaamin bahalaha sababta ay u nacab tahay dhoola cadaynta dharkaas turan iyo sababta ay u dooratay cunsuriyadda ay kala kulantay labiska noocana iyadoo lagu qasbay marar badan inay xidhato dhar qaawan sababta ay u taageerto xawayaanka caarada loo yaqaan amaca badanta iyo astaamaha ay wadaagaan iyada ujeedka ka dambeeyay inaanay tegin weligeed iskuul marka laga reebo kooxdii ay ka tirsanayd ee muusikada ee Los Angeles dhibka ay kala kulanto xilliyada stage-ka iyo fanka xanuunka gaarka ee loo yaqaan syndrome disorder booskii ugu jiray xidig iyo raabarkii caanka ee Extentation xilli ay ilmada ceshan weysay markii wax laga weydiiyay dhimashadiisa ka gadaal Justin Bieber oo ilaa yanaanteedii taageeri jirtay iyo jawaabtii uu siiyay markii ay caan noqdeen qalbi jabkii uu geystay Andrea Madi iyo aktarka caanka iyo xogo kale oo ku saabsan fanaanadan cajaa'ibta badan ee Billie Eilish ayaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkeena maanta balse ka hor waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta muuqaaladeena idinkoo like garaynaya subscribe ayuu ku soo biiraya YouTube-keena Baldahab TV waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsanidin saaxiibayaal Billie Eilish oo ah shakhsi kaga yaabsatay dadweynaha ficiladeeda waalida iyo dhaqamada gaarka ay leedahay ayaa dhalatay sanadii 2001 taasoo la macnaa inay jirto 20 sano qoriya waa fanaanad qoraaheed iyo cod sameeyaan caadi ahayn oo mid ay ku heshay wax ka badan malaayiin qof oo taageerayaal ah muddadii yareed ku jirtay fanka waxay tilmaantay qofka ugu dhaweey dhiirigeliya waxa qaldan ka qabta xilliyada murugada dareema lana qaybsada dhibkeeda inuu yahay Phineas waa walaalkeeda ka weyn waana qofka uu sameeyay heesaha ugu badan sida albankeeda koowaad ay ku jiraan 14 heesood oo daba Back in November of 2018, she revealed a secret video of her admitting her obsession for Justin Billie Eilish waxay qaab qosol leh u tilmaamtay dadkuna ay la yaabeen inaanay weligeed tagin goob waxbarasho balse ay kaliya wax ku baratay gurigooda qaabka loo yaqaan home teaching ama macallin guri sabab la xidhiidhay inay ahayd qof aad u gaaban muuqaal ahaan iyo jidh ahaan aad u yar taasna waalidkeedu ay uga cabsadeen in lagu qoslo dadkuna ay dhaleeceeyaan inay niyad jabtana ay ka ilaalin jireen balse marka kaliya ay waxbarasho dibadda uga baxday ay ahayd kooxdii ay ka tirsanayd iyo tiimkii muusikada ee loo yaqaanay Los Angeles halkaas oo tababarkii badnaa kali socodnimadii iyo ku mashquulkii balwadeeda faneed ay ka dhigtay gabadhaan hadda naqaanay Billie Eilish Thank you everybody. Woo! Billie Eilish waxay qabtaa xanuunka aadka u daran ee loo yaqaan syndrome disorder waxayna isku dayday inay qarsato muddo badan si aanay taageerayaasheedu u ogaan balse ugu dambeyn waxay ku qasbanaatay inay sheegto kadib markii ay ku tilmaameen qof waalan oo sameynaysa ficilo ka baxsan heesta ama muuqaalka looga baahan yahay markaas xanuunkan iyo syndrome disorder-kan ay qabto gabadha leexda Billie Eilish ayaa sababaya marar badan inay iska qosasho xilli aan munaasib ahayn sidoo kale inay xoqato madaxa iyo in iyadoo waraysigu u socdo iska kacdo dadkuna ay la yaabaan balse ugu dambeyn way cadaysay waanay sheegtay markii dadku ay suuqa u geliyeen xumaanta inay waalan tahay caadina aan ahayn gabadhani balse way fashilisay iyada ayaana soo bandhigtay cadaysana inay qabto syndrome disorder you didn't intend to speak about, but that you have Tourette syndrome and that it comes out at certain times. Inta soo qura maaha waxyaalaha yaab kale ay gaarka ku tahay gabadha leexdo Billie Eilish waxaana lagu yaqaan inaanay cunin hilibka oo ana dadka loo yaqaan vegetarianka ama cuno khudaarta halkay ka cuni lahayd hilibka kala duwan ee xoolaha amar la su'aalay su'aashaasna iyo sababta inay cunin hilibkana waxay ku jawaabtay qaab qosol leh iyadoo tiri qofka cuna hilibka xoolaha waxba ma dhaamo bahlaha sababtoo ah ma jiro nolol kala cuna ilaa haddii uu yahayna waa bahal anigana ma yihi bahal haddaba maxaad ku tilmaami lahayd ficilada waalida ama qosolka badan ee gabadha la yidhaahdo Billie Eilish innagase ma waxay aaminsan tahay hadda inaan nahay bahalo mar kale astaamaha qosolka badan ee ay leedahay Billie Eilish waxa ka mid ah in xawayaanka adduunka ugu jeceshahay samaysahan ay tahay xawayaanka loo yaqaan caarada ama cagabadanta
shandadeeda haddii aad furtana laga helayo kumanaan iyo malaayiin ka mid a waxa loo yaqaano caarada halka dadka qaar ka cabsadaan oo muuqaal ahaan iyo inay xataa u soo dhawaato caaradu waxaana wax laga su'aalay markii ay u dooratay mid ka mid ah heesaheeda inuu isticmaasho caarada ama xawayaanka loo yaqaano spiderka waxaana ku tilmaamtay inay ku jeceshahay xawayaankan muuqaal ahaan iyo sidoo kale astaamo badan ay wadaagaan sida gooni ahaanshaha dabcadsanaanta tubka ama iskiinka uu leeyahay iyo xilli weliba ay ku tilmaamtay waxaa jira astaamo khaas oo aanan halkan ka sheegayn oo aanu wadaagna annagu bale ku degtay maxaad ku tilmaami lahayd ama ku qiyaasi lahayd adigu astaamaha khaaska ee aynay carrabaamin ama sheegin gabadha lahdo Billie Eilish ee ay wadaagaan xawayaanka loo yaqaano caarada Oh, shut up. Why would you do that? Why would you have such a thing? Because he's cute. There's nothing. mar kale Billie Eilish waxaa ka mid ah astaamaha cajaa'ibta ee ay caanka ku tahay xidhashada dharka dunta ee asturan waxaana lagu yaqaanaa fanaaniinta kale inay xidhaan dhar khafiif ah oo qawan gebi ahaanba iyagoo u arka waxay ku helayaan taageerayaal badan ama ku soo jeedinayaan faniskooda balse taa beddelkeeda Billie Eilish waxay caan ku tahay dharka qariibka ee ay uga duwan tahay fanaaniinta oo dhan mana laga yaabo inaad aragto muuqaalo qaawan oo ay leedahay ama wadata dhar khafiif ah gabadha loo yaqaano Billie Eilish waxaana tidhi mar la weydiiyay arrinta ay sababaha u xidhata dharkan anigu dadka codkayga ayaan ka iibiya ee kama iibiyo jirkayga ma jecli qaawanida iyo in layga dubo muuqaalo falxun waxayna dili karaan sumcadaada mana rabo in laygaga hadlo waxaan ahayn fankayga sida inay yidhaahdaan waxaad leedahay daba buuran jidh noocaniya ama muuqaal caynkaasa waana sababtaan u xidho baby dress ama dharka culculus sida koodharka fanaanadaha dunta iyo waxyaalahaas turan ee noocaniya mana aha mar iyo laba inta laygu qasbay ama laygu cunsuriyay inaan xidho marya khafiif ama qaawan sida fanaaniinta kale waa fanaanad gabadha sidani u hadlaysaa alle hableena soo hanooniyay intii aan fahansanayn Ingiriiska iyo dharkaas turan xidhashadooda maxay aad ku tilmaami lahayd fikirka ama qaabka ay aaminsan tahay gabadha la yiraahdo Billie Eilish I don't know. And it's like, it's fine. They were just trying to protect me because the world has a lot of views and a lot of opinions, and I get it, and it's whatever. Billie Eilish waxay qisi jacayl wadaagay fanaankii iyo raabarkii mucjisada ahaa ee XXXTentacion oo la dilay 18 Juun sanadii 2018 oo lagu xasuusto codkiisii waalid ahaa dhaqamadii uu sameeyay markii uu dambeysay ay ka mid ahaayeen inuu soo galay live Instagram isagoo dhiirigelinaya dhalinyarta ka daadayar inay iska dhaafaan xumaanta daraagiska iyo dilka sameeyaana ficno wanaagsan oo lagu xasuusto sidoo kale waxaa mar kale lagu xasuustaa dad masaakiina oo uu gaadhsiiyey waxyaalihii ay u baahnaayeen sida lacag dhar ay xidhaan iyo waxyaalo kale oo muhiima xilli gebi ahaanba dadka qaar xataa uga shakiyeen inuu islaamayo oo maalmahaas iyo waqtiyadii u dambeeyey noloshiisa balse nasiib darro isagoo ku jira goob supermarkada isaga iyo adeerkii kana iibsanayaan mooto ayaa waxaa ugu soo galay 3 nin waxa uu isku dayay inuu u baxo dibadda maadaama uu ka shakiyay inay dilayaan balse nasiib xumo markii uu galay gaadhiga ayay ku dileen goobtii sidaasina ayuu ku dhintay raabarkii iyo fanaankii mucjisada ahaa ninka loo yaqaano XXXTentacion. XXXTentacion is dead. It seems his producers and his fans aren't willing to let his memory die. waan ka soo hadli doonaa Eges haddii aad u baahataan muuqaalo gaar ah iyo mowduuc isaga si khaas ah u quseeya Billie Eilish waxaa mar wax laga su'aalay dhimashadiisa kadib Eges ay tidhi kama xishoonay inaan ooyo dartii wuxuu ahaa shakhsi cajiib ah oo macquul qof aan aqoon inuu ka sheego wax qaldan wuxuu soo wici jiray subax kasta isagoo ii sheegay inuu ogaado xaaladayda waxaan ka heli jiray dhiirigelin wuxuu iga caawiyay guulo badan marar badan wuxuu ila hadlay qaab qosol ah isagoo igu yidhi inagu waxaan nahay aliens ama dad ka yimid adduunyo kale gebi ahaanna ka duwan dadka qosol iyo murugo ayay gebi ahaanba ku gabagabaysay waraysigaasi iyadoo muujinaysa dareenka iyo jacaylka ay u qabtay XXXTentacion. No, I'm not human. You're not human. We're both aliens. You know, we're not on this earth, really. Billie waxay sidoo kale taageero weyn u tahay laayiraanteedii oo Bob Stark iyo fanaanka reer Canada ninka lagu magacaabo Justin Bieber waxayna tilmaamtay inay ku diyaar jirtay kalsoonidiisa kala socodnimadiisa oo aan astaamaha ay wadaagaan iyada inay fanka yaran ku soo galeen iyo sidoo kale inay hayaan dad kaligood socda Billie Eilish iyo ninka loo yaqaano Justin Bieber waxayna tidhi iyadoo ka hadlaysa taageerada ay u haysay childhoodkoodii iyo yaraantoodii
iyo intii ugu horreeyay fanka. Way adag tahay inaad la kulanto qof aad taageerto bilowga, balse markii aad caan noqoto wax kasta ayaa ku soo raadsanaya. Justin ugu dambeyn waa ay kulmeen waxaana ka ballan qaaday inuu mar kale ka garab istaago albamkeeda caanka ee loo yaqaano Bad Guy oo ay kaga hadlayso burburkii qalbiga uu geystay Andrea Mathio oo ah actor iyo jilacaanka Bollywoodka kaasoo xidhiir la wadaagtay hadda ka hor balse uu geystay khiyaano qalbi kana raacay gabadh kale xilli waliba boostiyo qaab daran oo ku fadaxadaysanayo uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka gabadha la yiraahdo Billie Eilish. haddaba waxaan ka baranaynaa sheekada cajaa'ibta badan ee Billie Eilish in kali ahaanshuhu yahay nabadgelyo cid sirtaada faafinaysaana aanay jirin. mar kale asturnaanta iyo qaabka ay u hadashay ee ay leedahay dadka waxaan u soo bandhigayaa codkayga iyo taalantigayga ee ma aha jidhkayga, mana jirta sabab aan u qaawanaado anigoo doonaya inaan wax u sheego ama u soo gudbiyo gabi ahaanba fankayga. midaas oo ina tusaysa gabi ahaanba qaladka ay leeyihiin dadka moodaya inay jidhkooda ku soo jeedanayaan ama fanis iyo taageerayaal ku helayaan inay qaldan yihiin, kuna qurux badnayd inay taalantigooda iyo waxay yaqaanaan u soo bandhigaan halkii ay ka muujin lahaayeen jidhkooda. haddaba daawade maxaad ku tilmaami lahayd fanaanadan Billie Eilish iyo astaamaheeda cajaa'ibta badan aan kaga soo hadalay xagga hore? intaas ayaanu ku soo afmeerinaa sheekada qosolka iyo qisadaba leh ee Billie Eilish. haylaawin inaad la garayso muuqaalka, ku soo biiri channelka oo taabo subscribe si aad u noqoto daawadaha koobaad ee muuqaaladeena. hoosna igu dhaaf codsigaaga iyo muuqaalkaad jeceshay inaan kula wadaagno ama aan ku soo diyaariyo.